maanta waxaan ka hadlaynaa nin aan cidna kaga horayn sadaqada xitaa geeridiisa kadib ma jirto cid kaga horaysa bixinta sadaqa. waxaa la weriyey in khaliifkii muslimiinta Abuubakaru Sidiiq alle ha ka raali noqde markii uu geeriyooday oo uu talada qabtay Cumar binu Khadaab alle ha ka raali noqde. habeen ka mid ah habeenada ayaa Cumar oo ahaa amiirkii muslimiinta wuxuu bilaabay in uu kormeero ammaanada dowladda. wuxuu booqday bangiga dhexe ee ummadda oo markaas loo yaqaanay baytulmaalka muslimiinta. waxaa loo furay sanduuqyadii ay ku jireen dukumentiyada waxaana la soo saaray hantidii baytulmaalka taalay sida dahabka iyo lacagta inta la kala saaray ayaana lana diiwaangeliyey kadibna lagu wareejiyey amiir Cumar. intii uu Cumar alle ha ka raali noqdee dib u eegayay dukumentiyada mid ayuu ka helay mid ka mid ah sanduuqyada weel xiran oo ay ka buuxdo lacag. wuu furay isagoo xiisaynaya in uu ogaado waxa ku jira gudihiisa. markaas ayuu gudaha sanduuqa ka helay warqad yar oo ay ku qoran tahay anigu waxaan ahay Abuubakar khaliifkii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. intii aan xilka hayay waxaa la ii qoondeeyey mushahar ka yimid baytulmaalka ummadda balse waxba kama aanan isticmaalin sababtoo ah xilka aan hayay waa kii rasuulkii Ilaahay oo gaarsiiyey ummadda fariintii eebihiis u soo dhiibay isagoo aan wax abaal ah kaga beddelan isaga oo doonaya keliya raalli ahaanshaha Ilaahay. waxaan naftayda ku maareeyey noloshayda anigoo ka faa'iidaysanaya hantidayda gaarka ah. lacagtan ku jirta weelkan waa mushaharkii oo dhan waxaan u dhiibayaa cidda iga dambaysa ee qabata khulafada si loogu celiyo baytulmaalka muslimiinta. markii Cumar alle ha ka raali noqdee uu akhriyey ereyadaas wuxuu fariistay dhulka indhihiisana waxaa ka qubatay ilin. wuxuu ku yidhi cod gariiraya Ilaahay ha kuu naxariisto Abuubakar. runtii waxaad dhibgelisay kuwii kaa dambeeyey. waxaad naga reebtay meel aan kugu gaari karno xitaa kadib geeridaada. qisadani waxayna baraysaa macnaha runta ah ee ammaanada. waxay caddaynaysaa in weynida qofku aysan ku jirin xilkiisa balse ay ku jirto akhlaaqdiisa. waxayna muujinaysaa in ilaalinta hantida guud iyo inaan lagu xadgudbin ay ka mid tahay iimaanka. waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuuna siiyo xalaal oo uu ku guuleeyo mas'uuliyiinta muslimiinta cadaalad iyo ammaano aamiin. subxaanallah waxaan ku soo gabagabaynaynaa hadalkii nebi Yuunus nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee ahaa ilaah kale ma jiro adiga mooye subxaanaka runtii waxaan ka mid ahaa dulmi falayaasha.